gaadadu ma wanaagsana qof weyn oo mas-uulihi in uu group ama urur ama qof aflagaado hawada u mariyo aflagaado layskuma laha waan maqlaya xogeyaha ururka xisbiga wadani oo dhowaan urur noqon doona sida sharcigu dhigayo oo nagu sheegaya inaanu nahay buulhunguri ama nagu sheegaya in dowladda aanu u shaqaynayno ma nihin buulhunguri xukuumaddana uma shaqaynayno waxaanu nahay muwaadiniin xaq u leh inay furtaan urur sidii shalay xaqii shalay siiyey cabdiraxmaan inuu furto waddani kii uun baanu annaguna laftigiisa isticmaalayna shalay sida wararku igu soo gaarayaan cabdiraxmaan markii uu waddani furayey waxaa lagu lahaa dowladdaa wadata iyo waa buulhunguri marka tii uunba marka waa isaga dul qaadanaynaa laakiin saaxiibaday waxaan leeyahay idinkaa muddo soo jiray saan maalin horeba sheegay idinkaa xafiisyadii iyo magaranaysaa nidaamkii o dhan idin dhisan yahay taageerayaal badan baa haysataan annagu waa cusubnahay waxa weeye kalsoonidu iyo idinka lumin waa laga yaabaa ilaahay baa waxaan qora oo qalinka hayee in idinkoo sida nimanka atiin ka wacan oo dadku mar labaad mandatekii idin siiyey inaad soo noqotaan haddii dadku aanay idin rabinna soo noqon maysaan xukuumadduna saan maalintii horeba sheegay ma hayso iyadu awood ay qofka ururkiisa xisbi kaga dhigto awoodda ilaahay baa awood leh laakiin shacabkay gacanta ugu jirtaa haddii shacabku ay annaga noo arkaan inaanu nahay buulhunguri dee iyaga u taallaa inay markaa shacabka ayaanu kulligayo u tegaynaa idinka iyo annaguba iimaansada annagu shacabka waa iimaansanaynaa wixii nagaga yimaadana waa inaan halkan ka taageero bayaanka ay soo saareen waddamada daneeya nidaamka dimuqraadiyadda somalilan islamar ahaantaana dhaqaalo badan ku bixiya sidii dimuqraadiyadda waddankeenu uu u sii horumari lahaa bayaankaasi waa bayaan xambaarsan hadal nuxurkiisu yahay inaynu dhammaanteen iskaashanno innagoo reer somalilanah madaxda somalilan oo dhan isuguna tagno in aynu dardar gelinno howlaha iyo nidaamka dimuqraadiyadda oo inoo horseedaya in la qabto doorashooyinka soo kala horeeya ee waddanka ka dhacaya sanadkan oo igu soo horeyso diiwaangelinta codbixiyayaasha diiwaangelinta ururada tartanka ururada iyo tii madaxweynaha annagu markaa urur ahaan aad baan u soo dhoweynaynaa aadna waa u taageeraynaa aad iyo aadna way u mahadsan yihiin waqti badan bay geliyeen